shirkadda Dahabshiil Group ayaa agab caafimaad ku wareejisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland kaasi oo ka koobnaa mishiinka lagu baaro caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale hal ambalaas iyo sidoo kale agab kala duwan waxaana ugu horeyntii madashaasi ka hadlay mas'uul u hadlayay shirkadda Dahabshiil Group waxa maanta sharaf noo ah daamnahay shirkadda Dahabshiil Group inaan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkaddu ballan qaaday qaybtii ugu horeysay qaybaha qalabku soo socda wuu kala dambeeyaa waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunidii kala xayiray oo diyaaradii xayiran yihiin oo maraakiibta xayiran tahay baa waxay sababi weyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay marka intii timaadaba maadaama dadku baahidiisii ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshii loogu talagalay loo sii gudbiyo inaan si hayn oo aan anagu halku haynaan wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay shirkadda gudoomiyaheeda iyo saraakiishuba waxay go'aamiyeen markaanu qalabkan soo iibinaynay inay dadka loo soo iibiyo wax manfac leh oo wax u tarayo raandhiis leh sida mashiinadaas oo kale laakiin aanu waxyaabahan yar afka lagu xidho waxaan oo aragnay wax garanaysaa aan wax weyn taraynin laakiin bal wax dadka wax u taraya inaanu keenno qalabkan maanta aan wareejinayno maca gaariga marka lagu daro ambalaaska 200,000 ayuu imka marayaa wixii aan hore u dhibnay kaasha mooyaane qalabkii kalena wali wuu soo socdaa maanta waxaan wareejinaynaa haddii alla idmo waan wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejinaynaa iyaguna halka ay ugu tala galeen ay ku sii wareejin doonaan insha Allah waxa weeye mishiinkan weyn ee dadka lagu baaro magaciisa muxuu ahaa PCR ayaan wareejinaynaa waxaanu kala wareejinaynaa gaarigan ambalaaska waxaanu kala wareejinaynaa laba mishiin oo midna halkan imka ku aragtaan midna uu gudaha saarayo mid weyn weeyo wala dejin karo waayo wax weeyaan waxyaabaha waa mishiinada oxygen-ta degdeg u dhaliya ama qofka degdeg u siinaya ma garanaysaa naqaska degdeg uga saara marka afarta shay oo ambalaaska mishiinka weyn PCR-ka iyo laba mishiin oo iyaguna ku oxygen-ta dhaliya isla markaana qofka degdeg naqaska uga saara ayaanu maanta wareejinaynaa geesta kalena waxa halkaas hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaana ay si wada jir ugu hambalyeeyeen shirkadda Dahabshiil Group si agabka soo gaarsiisay ambalaaska iyo oxygen concentrators laba xaba ah waa hordhici alaabtii ay ballan qaaday ama agabkii ay ballan qaaday shirkadda Dahabshiil taasoo aan leenahay ilaahay ha ka jisaaysiiyo meeshii ay ka soo saareenna wax khayr qaba Allah ugu bedelo waxay ka qayb qaateen hawshii qaran iyo hawshii ay waday gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee lagula dagaalamayay xanuunkan COVID-19 arintani waxay marxaati u tahay sida ummaddu markay isku tashato ay wax weyn uga bedeli karto waxaad arkaysaan marka la isku wada daro dhammaan tijaarteena shirkadaheenna ganacsatadeenna waxa ay si mugle uga qayb qaateen hawshii gurmadka ahayd ee aynu ugu jirnay xanuunkan qalabkan ay keeneen iyo kuwa ay soo wadaana waxa ay wax weyn ka tarayaan hawlaha ay wado wasaaradda horumarinta caafimaadku waxa kale oo lagu wareejiyeen qalabka caawiya neefsiga maanta waxaynu u joognaa waa hordhici alaabtaas oo ka kooban ambulanska aad arkaysaan iyo laba kamida agabka caawiya neefsiga iyo mashiinkii lagu baaray xanuunka intaasaanu maanta kala wareegaynaa taa macnaheedu ma aha inaanu wareejintaasi tahay wareejinaan qorshaysnayn meesha la geynayo laakiin maalintii ay qalabka ballan qaadeenba annaguna wasaarad ahaan qorshaanu samaynay qalab walba halka looga baahan yahay marka la geynayo iyo qalabkaasi meesha la dhigayo iyo cidda ku shaqeynaysa tababarka ay u baahan tahay iyo nidaamka habraaca maamul ee wasaaradda caafimaadka ay qorshaysay waan dhamaystirnay marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda oo leenahay qaybta hore waa gudoonay qaybaha dambana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba in lagu qaybin doono qorshaha si yaala oo noqon doonin mid iska meel aan ku habboonayn la geeyo waxaan u ballan qaadanaa shirkadda qalabka qiimihiisa waanu naqaanaa wasaaradda caafimaadkuna agabka noocan oo kale ah si fiican bay aqoontiisa iyo marka la isticmaalayo meesha lagu isticmaalayo iyo nidaamka loo isticmaalayo ay tahay waxa shaqadiiba wasaaraddu qabanaysay ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa agabkii ku wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ku wareejiyay oo runtii in badan aan u qayl hadaan reer Burco ama gobolada bari
in aanu helno mishiinkii lagu baarayay xanuunka iyo maxay ahayd iyo agab kalaba maanta waxaanu kala wareegnay wasiirka uu nagu wareejiyay 4 item 2 mishiin oo kuwa dhaliya oxygen-ta iyo gaari ambalaas ah iyo mishiinkii lagu baarayay xanuunka CPR-ska ahaa ilaahay baa mahad leh. Xamsi Axmed Saliiban Xamsada Barre telefishinka Star Hargeysa.